Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal kulanti wanaagsan meel kasta oo joogtaan. Halkan waa Caalim Media 24. Barnaamijkeena daawadayaal waxaan uga hadli doonaa eedayn loo soo jeediyay dowladda Itoobiya ee la xiriirtay in Soomaaliya ka bilowdaan inay canshuur ka ururiso. Sidee Itoobiya canshuur kaga qaadaysaa Soomaaliya? Sidoo kale xagee canshuurtaasi laga qaadayaa? Xogtaasi xagee laga keenay laga soo xigtay? Barnaamijka ayaan si kooban daawadayaal uga hadli doonaa ee mar kale ku soo dhawaad Caalim Media 24. Haddii aad nagu cusubtahay YouTube-keena subscribe noo saar, Facebook page-keena sidoo lamid follow soo dheh, dad hore noola joogtana akhbaartan share iyo like noo saar si bulsho badan aan u gaarno. Waxaan ku bilownay si laga soo xigtay warbaahinta kooxda Amxaarada ee gobolka Amxaarada Itoobiya ka dhisan. Ciidanka Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado ayaa bilaabay in canshuur ay ka qaadaan dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku nool. Ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya ku sugan ayaa dhowr mar lagu eedeeyay falal bini'aadanimada ka baxsan inay ka geystaan deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah. Saacadii waa markii ugu horeysay ee lagu eedeeyay in Itoobiya ay lacag ka ururinayso shacabka Soomaaliyeed si dalka Itoobiya loogu celiyo. Warbaahinta gobolka Amxaarada qaybo badan oo kamid ah ayaa laga soo xiganayaa in lacag ururintaasi gobolka Gado laga bilaabay si gaar ah deegaanada ciidanka Itoobiya ee gobolka ay iskaga sugan yihiin. Ma jirto ilo madax bannaan oo ilaahay hadda si rasmi ah u cadeyn kara inay jirto warbixintaasi kooxda Amxaarada ay daabaceen. Hase ahaatee waxaa sidoo kale xigtay qaybo badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee warbaahintooda. Itoobiya ayaa horey Somaliland heshiis ula gashay taas oo loo arkay inay tahay faragelin toos ah oo Soomaaliya ku sameynayso. Sidoo kale ciidanka Itoobiya ayaa ku sugan qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka sida gobolada Bay, Bakool, Gado, gobolka Hiiraan iyo gobollo kale oo dalka kamid ah. Sidoo kale deegaanada xuduudda ayaa in badan ciidanka Itoobiya waxay ku leeyihiin saldhigyo joogto ah halkaas oo ay u maamulaan sida dalka Itoobiya oo kale. canshuur ururintan hadda la tilmaamay in laga sameeyo gobolka Gado ayaana ku soo beegmaysa xilli khilaaf aad u xooggan oo ka dhaxeeya labada dowladood ee Addis Ababa iyo Muqdisho, kuwaas oo aad isugu khilaafay kadib markii uu soo baxay safgaradkii heshiis ee Itoobiya iyo maamulka Somaliland dhexmaray ee heshiiska badda la xiriiray. Arrintan lacag ururinta haddii ay cadaato waxay noqonaysaa xadgudub kale oo dowladda Itoobiya ay ka geysanayso gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ciidanka Itoobiya ku sugan Soomaaliya badankooda ay yihiin ciidan aan ku joogin magaca ADMIS, hase ahaatee ku jooga dana gaar oo dowladda Itoobiya ay leedahay. Waxayna sheegaan in dowladda Soomaaliya ay garab siinayaan, hase ahaatee Soomaaliya dhankeeda ma aqbalsana iyada garab siin ay u joogaan ciidankan ADMIS ka tirsan Itoobiyaanka. Jabhadda Amxaarada ayaa dagaal xoogan wuxuu kala dhaxeeyaa sidoo kale Itoobiya, waana dacaayad dhici karta inay ku fidinayaan Itoobiya dowladeeda oo aan ahayn mid wax ka jiraan. Akhbaaraadka sidoo kale Itoobiyaanka waxaa iska soo horjeeda gaar ahaan kuwa dowladooda ku kacsan ayaan ahayn kuwa lagu kalsoonaan karo. Inta badan warbaahinta Amxaarada waxay tabiyaan arrimaha la xiriira dhacdooyinka dowladda Itoobiya ay geysanayso iyo sidoo kale isqabadkii ka dhaxeeyay labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay aad u buunbuuninayeen. Daawadayaal intaas ayaan qodobkan uga hadlaynay Itoobiya oo lacag la sheegay inay ka qaadayso Soomaaliya aan ku soo koobayno.